Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalay meel baa adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada janaalkeena. Biliis hadaa nagu cusub tahay subscribe noo saar, hadaa hore nala joogtayna like iyo shareeka noogu roonaada. Waa ujeedaan waxaan sameyneynaa shawarmo aad u fudud oo macaan badan oo aad ka heli doontaan. Meesha waxaa inoo yaalo chickenkii oo diyaarsan iyo sidoo kaleeto bahaaraadkii aan ku dari lahayn ama carfisooyinka xawaajiyada aan ku darsan lahayn. waa ujeedaan meesha inuu diyaarsan yahay. Haddana waan kusoo dardarsanaynaa. Hadda waxaan ku darsanaynaa qaanta haafkeeda oo huruud ah. Chickenku wuu yaryahay saas haaf uga dhigoyaa. Haddana waxaan kusoo darsanaynaa qarfaheena shiidnaa oo diyaarsanaa. wixii carfiso ku yaala isticmaali kartaa, qasab ma waxaanay isticmaalayna isticmaashid waxooda uu ku yaalo oo ku carafsan kartid aa isticmaaleysaa. Haddana waxaan kusoo darsanaynaa basbaaskeena guduudna. wixii markaas gurigaaga yaalo oo la heli karaa isticmaali kartaa. waayo waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar inuu ku oolin ama waxyaabaha qaar ay ku dhibaayaan. Haddana waxaan kusoo darsanaynaa filfil yar. Kaaliska arag dhadhan ay u yeeleysaa filfisha. Haddana waxaan kusoo darsanay hal xabo toon aan soo tumanay. Qaanta saliid aan rabno inaan ku walaaqano. Hadhow saliid ku karinayno waa arki doontiin. Cusbo yar aad kusoo darsanaynaa. shawarmahaas uu dhadhanku uu noqdo waxaa waa dhanaanka lagama badiyo. Haddana yogurtkeena kusoo darsanaynaa. taas kusoo walaaqeynaa si fiican isku dhex gelisid waayo bahaaraadka dhan ku walaaqdid si fiican isku dhex galo. waxaa la rabaa dhinac walba inuu ka gaaro la rabaa uu lafaha ka galo. carfisooyinka kusoo darsano dhan iyo dhanaanka waxa dhan kaaliska arag isku noqonayaan inaba caadi maaha. waa ujeedaan. Haddana si fiican iskugu soo walaaqanay. Haddana waxaan sameyneynaa bacdeena ku daboolaneynaa. bacda raashinka lagu daboolo waaye. marka waxaan rabnaa in cambaar isku huurto oo si fiican isku dhex gasho. bacda si fiican ugu daboolaneynaa meel aariga ka gasha inay kasoo banaanaato ma rabno. bacdeena markaa si fiican ugu daboolano waxaan sameyneynaa waxaan gelinaynaa fridge-ka. inta waxayna kala iska diyaarsanaynaa fridge-ku noogu jiraaya. si fiican isku dhex galaa inaba caadi maahan aan ku dhahay. cambaar inuu la yaala la rabaa. waa kana haddana waxaan soo saaranay dabkaa soo saaranay. chickenka ujeediin weelka saliid kuma jiro. wax saliid ay kuma karin doono. waaye casho yar oo caafimaad ah rabo in laga tuuro saliid iyo waxaas oo dhan waxaa waaye qaantadeeda ayaan ku dareyni saliidda ahayd. taasoo kusoo huurinay taas bisa ku shiilayna saliid kale oo kuma darno. ujeediin taawaha inuu qaleel yahay. biyana laguma daraayo. waxaa ka ilownay liin dhanaanteen jeex liin dhanaan kusoo miiranay. dhanaankiisa inaba caadi maahan ku dhahay. dhadhankiisa wax lagama qaban karo. liinta markaa chicken ku dhex karsatid wax biyo kuma dareyno. biyo asaga dhal wax yar. asaga xeer soo daboolay biyo yar oo dhalay biyihiisa ku bislaanaya dhicaankiisa. waxaa biyana kuma dareyno saliidna kuma dareyno. asaga la isku shiilaya kaaliska rabo noqonaya. waa ujeediin soo u karkaraya dhicaankiisa ku karkarooya wax biyo kuma soo darsanin. taas inaa ogaataan waaye.
biyihiisa markuu dhuuqo aan isku qaleyneynaa. Waa ujeedaan hadda biyihii wuu ka dhamaaday, saliidna malahan, wuuna bislaaday. Dhadhankiisa waxba lagama qaban karo. Waa ujeedaan soo maaha suu u qalalan yahay, aad usoo shiilnay. Hadda chicken-keenu wuu noo diyaarsan yahay. Haddana waxaan sameysan doonaa jibsigii. Intan waxaan noogu karkaraaya jibsigeeni aan soo diyaarsanay asagana. Waxaa waaye shawaarmo jibsi la'aan ma shaqeynayso maano. Shawaarmada waxaa fiican in mar walba chicken-ka la socoto. Jibsiga la socotaan ka wada suuri. Dabka waa soo gaabinay. Waxaan rabnaa si tartiib oo macaan inuu diyaarsamo. Waa soo diyaarsanay. Waa ujeedin shawaarmadeena way noo sii diyaarsaneed. Kuwa waxaa jira diyaarsan oo supermarket-yada lagu gadaa jiro. Laakiin haddii rabtidna guriga ku sameysan kartaa. Shawaarmo diyaarsan waxba kaa qaadanaynin waaye. Alaabteena intaan ku soo diyaarsanay. Meeshaan waxaa noogu jiro mayonnaise iyo ketchup. Marka waa marineynaa mayonnaise-keena soo marsanay, haddana ketchup-keena marsaneynaa, kadibna chicken-keena saaraneynaa. Ani waxaan rabaa shawaarmada chicken bis inaan ku diyaariyo. Dadka qaar waxay ku darsadaan jibsiga, laakiin ani waxaan rabaa jibsiga inaan gooni loo cuno. Shawaarmadeena chicken bis ay ahaato iyo mayonnaise iyo ketchup-kaan ku darnay. Waa ujeedaan saa u marineyno. Marka hore mayonnaise-kaan marineynaa, kadibna ketchup-kaan marineynaa. Chicken-keeni yaa saaraneynaa. Dhaxdaa ka kala jarnay. Suu noogu soo baxay waa ujeediin. Marka saasaan ku soo wada dhameysaneynaa. Tartiibteena. Saasaan ku wadeena ku soo dhameysaneynaa. Waa ujeedaan waa soo dhameysanay. Waa soo diyaarsanay. Suu noogu soo baxay waa ujeedaan. Kaaliska arag dhadhankiisa waxba lagama qaban karo. Shawaarmo caafimaad leh waaye. Jibsigeena intaan ku soo ridanay. Ketchup-ka iyo mayonnaise-kana ayagana waa kuwaana oo lagu cuni lahaa. Casho yaroo iska fudud waaye. Waxaan rajeynayaa inaad saan u sameysan doontaan aana ka heli doontaan. Waa ku mahadsantihiin meesha aana gaarsiisan. Please waxaa idinka codsanaynaa haddaaba intaan soo gaartay inaad subscribe-ka noo saarto. Haddaa hore noola joogtayna like iyo share-ka iyo comments qurux badan aad naga soo dhiibato. Intaan video xigaan ku kulmi doono. Waxaa idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.